Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan waxaan kusoo gudbinaynaa warqadaha lagu diiwaan gelinayo ardayda ee qaabka waxbarasho ee deerta. Warqadani waxaad ka heli kartaa bogga internetka iskuulada oo ah www.lewistonpublicschools.org. Ciwaanka boggaasna halkan ayaan kusoo qorayaa, shaashada ayaan kusoo qorayaa. Warqadani waxay khusaysaa qoysaska ilmahooda ay dhigtaan iskuulada dadweynaha Lewiston. Warqadan in la buuxiyo waa muhiim. Fadlan u buuxi form khaas ah cunug walba oo ka mid ah qoyskaaga oo wax ka barto iskuulada Lewiston. Haddii aad rabto in jawaabtada aad ku bixiso telefoonka adigoo helaya turjumaan bilaash ah, fadlan soo wac lambarka ah 207-576-1396 inta u dhaxaysa saacadaha 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Lambarka koowaad waxaad ku qoraysaa magacaaga, waalidka magaciisa koowaad iyo magaca awowga ayaa halkan ku qoraysaa. Ardayga qaybta labaad, lambar 2 waxaa iska leh ardayga magaca awowgiisa halkan ku qoraysaa. Lambar 3 ardayga magaciisa koowaad ayaad ku qoraysaa. Lambar 4 iskuulka uu ardayga dhigan doono xilliga deerta. Connors aduya Connors aad dooranaysaa halkaa kore. Farwell ku xiga, Geiger, McMahon, Montello. Dugsiga dhexe Lewiston Middle School, dugsiga sare Lewiston High School, dugsiga sare Lewiston High School iyo xarunta farsamada oo loo yaqaano LRTC. Kan xiga waxaa waye akademiyada Impact xarunta Longley. Haddii iskuul kale uu dhigto halkaasaad riixaysaa, iskuulka kale magaciisa halkan ku qoraysaa. Lambar 5 waxaad halkan ka dooran doontaa fasalka uu ardayga dhigan doono xilliga deerta. Fasalka xanaanada naasiriga ku xiga, 1aad, 2aad, 3aad, 4aad, 5aad ilaa iyo 12aad, fasalka 12aad. Marka intaas aad soo dhamayso halkaasaad xiga aad click gujinaysaa. Qaybtana waxaa laga baahan inaad ku qorto ciwaanka guriga. Lambar 6 lambarka guriga ku qoraysaa halkaas. Lambar 7 magaca wadada ayaad halkaas ku qoraysaa. Lambar 8 lambarka apartmentiga halkaas ku qoraysaa. Haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto warqadii hore oo wax ka soo hagaajiso halkaasaad gujinaysaa. Meeshii hore kugu soo celinaa. Haddana xiga aan taabano hore oo sii socono. Qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan warqadan buuxinteeda. Waxaa lagu leeyahay si loo qorsheeyo kooxaynta fasalada iyo gaadiidka la raacayo ama si loo ilaaliyo badbaadada dhammaan. Waxaa loo baahan yahay inaad martaqaanaa aad sheegto qaabkii aad rabto ilmaha inay wax bartaan. Haddii aad leedahay ilmahayga guriga ii joogaan guriga waxay ugu bartaan, qaybtaa kore ayaad dooranaysaa. Haddii aad leedahay laakiinse waqtina iskuulka aado waqtina guriga ha igu dhigto, halkaa hoosaad aad riixaysaa. Haddii aad mataqaanaa aad dhahdo kaleeto guriga ii dhiganayaa, tusaale ahaan guriga ii joogaya aad dhahdo taa hore aad doorato oo xiga aad riixdo, waxaa waaye sahankii la rabo inaad dhamaystirto waad bogtay. Marka dib aan u noqono qaybta kale aan ka hadalno. Haddii aad dhahdo kaleeto waqtina iskuulka iyo waqtina guriga igu dhigto, kaa hoosaad dooranaysaa. Qaybta xiga riixaysaa. Marka su'aasha 10aad waxaa waaye ardayga adiga aad halka ku qortay warqadana ku qortay gaadiid ma u baahan yahay, bas inuu raaco ma u baahan yahay, haa imaya halkaas kala dooranaysaa. Kan ku xiga waxaa waaye ma qorsheynaysaa in wax iska bedelaan qaabka ilmahaaga uu iskuulka ku tagayo. Waxaa laga yaabaa inaad dhahdo kaleeto ilmahayga anaa iskuul geysana, ma laga yaabaa taas kale inay dhacdo. Marka halkan ayaad kala dhehaysaa haa maya. Tan hoose waxaa waaye waxay khusaysaa ardayda iskuulada ku cusub. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa gobolkan inay ka imaadeen mise inay hadda bilaabayaan sida pre-K mise sida kindergarten. Marka ardayga hadduu cusub yahay halkaas dooro. Waxaa leedahay ardaygayga wuu cusub yahay, iskuulada wuu ku cusub yahay. Halkaa hoosaad dooranaysaa. Qaybta xiga aan taabano. Waa hagaag qaybta u dambeysa imaanay. Wuxuu ku leeyahay mahadsanid. Maamulka dugsiga ayaa kula soo xiriiri doonaa
toddobaadyada soo socda oo ku faahfaahin doona qorshaha waxbarasho ee cunugaaga. Marka fadlan xusuusnaa inaad u buuxiso foomkan mise warqadan cunug kasta oo qoyskaaga ka tirsan. Cunug walba oo qoyskaaga ka tirsan waa inaa hal foom oo gooni ah mise hal warqad oo gooni ah waa inaad u buuxisaa. Haddii aad doonayso in laga buuxiyo laga caawiyo buuxinta foomkan mise warqadan, waxaad soo wici kartaa lambarka ah 207 576 1396. mar kale aan ku celiyo waxaa waaye 207 576 1396. haddii aad doonayso in warqadan aad buuxiso adigoo isticmaalayo mataqaanaa computer mise telephone, waxaad ka geli kartaa bogga ah oo ah www.lewistonpublicschools.org. markaad meeshaas aad qorto aad riixdo bogga ku xiga oo kusoo baxo dhinaca bidixda, waxaa jira button mise button guduudan, kaasaa riixaysaa. kaas markaad riixdo waxaa kusoo baxayaan warqadaha ilaa dhan oo ku qoran yihiin luuqado fara badan ay ku qoran yihiin. marka halkaas waxaad ka dooranaysaa Soomaali, waana calaamadeyn doonaa qaybta Soomaaliga. mise haddaad doonayso inaad qaybta English sameyso, halkaasaa ka sameyn kartaa. haddii wax su-aal sidaan soo sheegay, lambarka haddaan idin sii soo waca 207 576 1396. waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.